السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحبتي قالين ملك استوديو ديدا كجوجتا ما سلام فضلا هدي اي tahay markii kugu horeysay soo boqotay channelka subscribe inoo saar soo kale gare oo share gare oo la wadaaga saxaabtaada asxaabtida qaaliga maanta ayaa dhinacayga midig fadhiya walaalkay Maxamed Dayax run ahaantii waxaan ka qaban doonaa barnaamijkeeni aad hore iga barateen ee ahaa waa kuma walaalkay Maxamed ku soo dhawow walaashay barwaaqo horta aad iyo aad baan u dhawahay barnaamijkaagana si kal iyo laabo waan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan maasantahay walaalkay qaali adiga ayaa mudnaanta leh bal hadii aan guda galno barnaamijkeena wax noo sheegtaa aniga iyo saxaabtaaga saddexan magacayga saddexan waa Maxamed Cabdirasaaq Jaamac صح ما شاء الله تبارك الله محمد سؤال كلين ويديني waxay tahay bal iyaro information naga sii noloshaada horta de nin sidaa u si balaaran meehiyo waxaan iska hay masiinka yar yani waxaan ka wadaa nin sidaa u si weyn meeyo story gaara iyo taariikh gaara laga qoro meehiyo ninka iska waqtigiisa iska gaaban ayaanay magacaygu sidaan hore ku sheegay waa Maxamed Cabdirasaaq Jaamac waxaan ahay jilayaasha ka midka magaalada Hargeysa kana tirsan dhammaan jilayaasha ummadda Soomaaliyeed yaana Hargeysa quraata oran jilayaasha ummadda Soomaaliyeed waxaan ku soo biiray jilaanimada 2019 bishii 8aad ayaan ku soo biiray maalin Isniina san taariikhda ku ayo de wax kale aan ku sii daro garan waayo bal waxaan noo sheegtaa su'aasha kale ku weydiinaya waxay tahay inaad noo sheegto cidda kugu dhiirigelisay caanimada amba heerka maanta aad taagantay inaad soo istaagto wallahi run ahaantii dad fara badan aad iyo aad aan bartaan uga salaamayo walaalkay Maxamed Saciid Cabdi Xasan walaalkay Maxamed Wardi iyo walaalkay Bashir Rashiid iyo dhammaan familkayga oo aad iyo aad u jecelahay oo heli hoobay la garab taagan haday waalidiintayda walaaladay dhammaantood bay noqdaan يا أصحابتي إذا أون لك على هاي وكم يدي هاي ولا الكلمة در محمد يالله تدمان تودبه أيه يقول رجلي عادي ولا على سؤال شكلين كويديني واحد صحي ما حد درين تمرك دارك تضد بدن أو كوكو حران أما كتاجرة أما مرك ميراك هذا صار بحال درين كبر درين تنلو ذي رنا أنت السؤال هذه دوين أكسن والله فرحت waxa ii farxada in waxaan soo mutaleynay dadka helaan oo xiiseeyaan oo jecel yihiin markaan arko dad ka feedback celinayo doonaya in wixii ay iga sheekayaan ama faallo qurux badan ka bixiyaan wallahi dareen aad iyo aad u qurux badan oo farxadaysan ayaan dareemaa wax caqabadana kuma ark su'aasha kale ku weydiinaya walaalo waxay tahay balna la wadaag cuntooyinka nooca jeceshay iyo dharka waxaad jeceshay inaad xidhato orta cuntooyin hal cunto kaliya tan nacabay waxa kale haday ka soo warbaxaan ma caafiyo halka cuntana miyanu sheegnaa ha ka qaran waxba orta waa mid kamid cunto Soomaalida waxa la yiraahdaa digir ayaa la yiraahdaa taa kaliya tan nacabay laakiin cunto kale oo nacabay ma jirto aad iyo aad hilibkana aad u jecelay dharkana haday noqoto dharka ugu badan jecelahay xidho markastana waa midowga dharka midowgan aad iyo aad u xiiseeyaa walaal su'aasha kale ku weydiinaya waxay tahay in kastoo aan jeclayna kugu sii badiyo maadaama waqtigu aad inoogu yariyay wadankeed jeclaan layd inaad ku noolaato oo maanta hadii la yiraahdo dayax wadanka ku noolaado wadankeed oran laydaan ku noolaado amaba wadankeed jeclaan layd inaad ku dalxiisto dalxiis maanta hadii la yiraahdo dayax geeya lagu dalxiis geeyna oo jeclaan layn lagu dalxiis geeyo ma talahaan mise dibad macnaha waxay doontaa يعني Soomaali ahaan mise wadamada dibadda wadamada qalaad wadankan aad iyo aad ku jecelahay oo wadanka Canada la yiraahdo Canada baan u dalxiis tagi lahaa tagin lahaa haday wadamadeenan Soomaalida noqotana waxaan aad iyo aad u jecelahay dhulka jasiirada ayaan aad iyo aad u jecelahay xiiseeyaa ما شاء الله walaalkay qaali waxaan ku weydiin doonaa su'aashii ugu dambeysay taasoo ah gabadha aad nolosha la wadaagayso ama caruurtaada hooyadood noqon doonta maxaad ku xulan lahayd astaamo nooceeyay inay lahaato ay jeclaan lahayd bal nala wadaag
horta run ahaantii haddaan maanta idhaahdo dayaxaantii gabadhan la wadaagaya nolosha ayaan sifaynayaa waxay noqonaysaa gabadhan anu gacanta ku samaystay gabadha waa inay dhararkeeda intaa ahaato waa inay quruxdaa lahaato waa inay noocaa inooqaa lahaato laakiin anu gabadh haddaan xulanayo dabeecad iyo dadla dhaqan keliya hataan ku xulan lahaa quruxdan iyo waxan waa wax la helo oo iska isiya laakiin dadla dhaqanka iyo dabeecadda iyo waxaasoo dhan ayaan ku xulan lahaa gabadha hadday dabeecad leedahay waa dadkaygi aad iyo aad xagga horaan ka qaata imika waad ismaqlasaaye waa inaad dabeecad lahaataa asxaabteeda qaaliga run ahaantii waan jeclaa inaan dayax su'aalo aad u fara badan oo maskaxdayda ka gooxaya weydiiyo oo idinku aad jeclaan lahaydeen macallineed ogaataan balse laakiinse wakhtiga oo nagu yardarsii ma noqon doonto dayax markii ugu horreysay uu channelkayga kasoo muuqdo kolley waa markii labaad ama saddexaad baan odhan karaa marar badanna uu ka soo muuqan doonaa oo garabkayga ood ku arki doontaan wax kastoo jeceshiina waa idiin weydiin doonaa balse laakiinse wakhtigu aad noogu yar waxaan jeclaystay barnaamijkeennii aad horeba iiga barateen ee waa kuma inaan caawa intaa idinku soo gebagabeeyo intaynu barnaamijka mid la mida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaysaa iyo nabadgelyo intaan idinka tegin kahor maxaad asxaabteeda maxamed oo kaga tegaysaa asxaabtaada waxaan kaga tegayaa dee ilmaadeerayaal meesha cas eed arkaysaan iska dhaadhaafaysaan kulley lacagaydi kuma qoraysee bliis subscribe-ta iska saara aad iyo aad walaasheen barwaaqo ama walaalaha geeska soo maahayn hablaha geeska si kaliya laaba ha la soo dhoweeyo fadhiga